بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. كتاب الطهارة أيهما sidoo kale in aan soo gaarnay kitaabka أحكام النساء. ويقول الشيخ مركا حكم النساء كحكم الرجال، يعني حكم كدتك رجع يعني دمرك حكم كيدو وحكم كرجع أو كلا وحيقول حكم هينكو حاجة مركا لقاها الله الظهارة ويلاشة إيو وسقاتك ويلاش لو وسقاتنا أيه waxyaalaha weysqaadka buriya haddii biyo la waayo in ciid loo guuro waxaasoo dhan way kala mid. marka wuxuu keenay meeshaan mas'ala laga yaabo in hadhowtii ay dhacdo mar un ay dhacdo oo ah haweeneyda weysqaadka waxaa la ogyahay haweeneydu gar ma laha, ninkuna gar asal u yahay, gar la-aantana gabdhuhu asalay u yihiin. دي waxay isweydaarsadaan oo gabadhii tin meelashii aan tinta raggu ku taalay oo garkii oo ragga oo kale gabadhii ay ka soo baxdo maxaa la sameeynaa de gar weyn u soo dhasho waxaa laasim ku ah inay biyaha gaarsiido gibilka inay gaarsiido asra ragga markay waysa qaadanayaan waxaa sunno ah gar weyn haddii leeyihiin oo qarinaya korkii qarinaya inay kor biyaha kamariyaan sunan ay u tahay inay gelgeliyaan hoos gelgeliyaan gabadhii marka digir weyn yeelato la dhihi ma ayaga maarta adiga kor ka mari ma la dhahay limaada waa qadiya naadira waxa waaye arrin naadira marka sideeda si ka duwan sidii arrintii mushaacad oo kale ayaa loola dhaqmaa oo ah in aan la ictibaarin in ay yani ay u dhaqanto sidii in gar loo kale sidaa ayay dhaqmaysaa. mas'ale kale oo ka hadlo ah haweeneyda madaxeeda inay xirto ayadana arrinkaas waa arrin muhiim ah. sida ogtiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka waxyaalaha uu ku qurxiyo waxaa ka mid ah xibna aan ragga ilaahay ku qurxin oo qurux aan u ahayn ayaa ilaahay ku qurxiyey. waxaa ka mid ah tintaa dheer ayaa ka mid ah inay sii daystaan waa ku qurxoon yihiin, waan ku foolxon yihiin runtii, tin la-aanna waa ku foolxon yihiin, tinta dheerna way ku qurxoon yihiin. saa darteed sharcigu wuu reeb maadaama gabadha quruxdeedii qurux saxa ay tahay, quruxdiina wax badan ay ku dhisan yihiin oo lala leeyahay oo keligeed aysan ku xirnayn maaragtay reer dhan ku dhisan yahay quruxdaas oo reer dhan ku wada joogo la-aantiisna laga yaabo reerka ku kala tago waxaa markaa la dul saaray xanibaad oo ah inaysan taaban xataa marka ay joogto cibaadooyinka marka ay joogto oo ilaahay markii ay ugu dhawaanayso ugu maaragtay isugu maaragtay bixinaysa ay joogto oo xajka iyo umrada ay joogto ma xiiri karto diinma ninkii uu xiiraay. marka wuxuu dhahay laa taxliqu almar'atu ra'saha bixaal, marna ma xiirayso maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamiga wuxuu ku karaameeyey ashyaa waxaa ka mid a ragga inuu ku karaameeyey garka, dumarkana oo sayntaa dheer ama tintaa dheer maarata waxa weeye la tidcaayo oo qoorta kasii laalaada ilaahay subxaanahu wa tacaala maarata uu ku karaameeyey uu ku qurxiyey. saa darteed madaxyaalkooda inay xiiraan haddii xalaal noqonayaan ixraamka xalaal noqonayaan iyo mar kale midna waxa weeye ma la ogola. dhaqankaasna runtii waa dhaqan gaalo. waad aragtaa hadda inta tinta sii deysa haddana sida raggiina u shabaxsiinayo waxa maarata tinta ragga oo kale camal ka dhiganaya dhaqan gaalaad wey. marka in gabdhuhu aada iska ilaaliyaan oo tintooda asalka ah oo ay ku dadaalaan wax kasta oo tintooda dheeray kara oo aan sharciguna reebin tintooda ilaashadaan. ay ka mid tahay matalan inaysan isticmaalin dawooyinka oo maaragtay tinta baabi'iya ama saliidahan aan la garanayn waxyaalaha ay ka samaysan yihiin ay waxyaalaha dabiiciya oo ayaguba ay garan karaan ay samaystaan, sida matalan inay maaragtay qudaar isu darsadaan oo kale wax inay qudaar la fahmi kan isu karsadaan oo kale
tintii u isticmaalaan waxyaalaha oo aad gabdhuhu yacni dadku meelaha laga soo maagayo ma oga muddo kadib gabdhaha laga yaabaa inay tiraahdo tintii way ka baaba'day saaniga noqotay وعلادنا هذانا أي فروضها إني فهمته ومع ذلك لكن دي حتى الله شرح حتى يعني دمرك واحد نقدين ضد يعني أي أسهل أنت هاي بدل اسم الوراء إني سلورين ويعني مثل محل كانوا تتكلم مرسل حصل لك أسكمر وهي روح نقدين دينا لهم وعاو حكوا تنتك على هذا النقدين وأسكمر سنة واحد يديه وكيف السنة يعني أيوة إني وحلفتان مسكحين سو ساران واحد التجربيان وقدر اسكو درسدان waxaan kiimikal isku darsadaan oo ka weysaneen dadkii inta la fahmay waxa la qalad hadba nooc marka wax kasta oo tinta ka qayb qaadan kara waa inaad waa sharcigu ogol yahay oo sharcigu uusan ka xanimin waa inaad maaragtay aad ugu dadaasho waayo waa qurux marka ayada maxaa sharciga markii cibaado la joogo inay gaabsiga xataa waa sidee ma sidee ninkii u jarnaa maya waxa yar intaas oo kala ay maaragtay jaraysa خلاص شرع إله سبحانه وتعالى مصلحة هي مصلحة دي الدنيا دي عبادية أي إلهي إسلسل عسينا سيد إلهي أكرم منها قبلها والفكرية هي عدو إلهي سبحانه وتعالى سيد أي دونيان ويمروا بكوها طاقيان يوحيرها ويمارت قبلها أي كل حفصنا هي حكم أرين كلا مسلك لو كان الله قبله إني سيد أكتين قروح الضمر ولو أقولي قروح لكن على noqoto quruxdaadu qurux sharciga la socoto markasta quruxdaadu sharciga la socotay quruxda markasta oo sharciga aad ka baxdo falxo isku bedeli baad u fiirso adiga su'aal tusaale mesela quruxdu dhagtaada adiga waa dhig way ku qorxoon tahay in dahab la suro ninka dhagtiisa waa dhig iyadoo مي كقرحان تاين ذهب لسرو مركات في رسالة وقف وضعها تاني هل كان يستاهل أنا هل كان يستاهل مثل لما وقف محرمها هذه مارتي سلام محرمها كفر تاين ذهب وضع نينك هل كان نينك وضع كان يستاهل وسكله له ذهب يسكله له ولا بده جود ولا بوجي ولا بده جود وهاكل دي يا أبد أجيد محاكل الدوي يعني تبع على سليم كفترة سليم كأقبل يسا دكتان حتى اسكت الدين هان اسكت دكتان ده بيقول قرحانته dhigtaan هو هذا marka quruxda markii maxalkeeda ay degto ayay waxay tahay quruxda ni ka baxdo qurux ma noqonayso wada u fiirso adoon madow adoo gabarho madow waad ku qurxoonta laakiin adoo madoobeyn oo ismadoobay miyaad ku qurxoonta ma ku qurxoonta adoo gabar cada waad ku qurxoon tahay cadaankaaga gibilka Ilaahay ku siiyay waa ku qurux gabadha madowgana waa u qurux cadaanka dumarka koobi noqdo miyuu qurux ku noqonaa ma noqon karo loo asayna wuxuu isku sharaxa u muuqdaaba uu sheegayaa inuu soo qurux ahay lana asal ma marka gabadha marka sunniyadeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala tinta ka soo dhalata wuxuu ugu tala galay xikma midaan baararka waxbuu Ilaahay ugu tala galay inay ilaaliyaan oo qabtaan wax shaqal aan ma jiraan jirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal adida iyo maqaarka iyo tin meel ku taala oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yaani dadka dhan ay wada leeyihiin oo wax si naadir aan ahayn xikmay ku dhisanta shaqay Ilaahay ugu tala galay shaqada hadii aad ka baabiso meesha shaqadaas yoma ma ayaa u dhibaatoonaysa saacad dhow ama saacad ayaa u dhibaatoonaysa gabdhaha marka tintaan in la yareeyo lama ogola tintaan xaajibka in sunniyaha in la taabto ama la xir lama ogola taasoo ka hadlaya marka waa xaraam in tintii la qorqoro oo xaajibinkii la qorqoro ama ma taas loo dheereeyo qaansa laga dhigo waxa weeye waa xaraam yani Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay una lacnay Nabi sallallahu alayhi wasallam noocaas المتنمسات وده مارته waxa weeye النامسة والمتنمسة midda maartay wax tifata iyo midda loo wax tifta iyo midda tifida dalabtada ama qorida dalabtada waa la lacnay Nabi sallallahu alayhi wasallam lacnadna waa maxay gabadha ay gabadh noocaas samaysan halis Ilaahay ka fogeeyo wuxuu kala ka hadlay mas'ala kale oo keenay hadana oo ah ilaanka
tintii iyo korkiiba gabadha inay maaragtay cilaansato waa wax maaragtay marka maxaa horta asal ah waxaan ognahay in gabadhu dee quruxdeeda ka mid tahay cilaanka quruxdu ka mid yahay welibana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala ragga waxa yani dhiibkoodu waa dhiibka yani waxyaalaha aan lahayn muuqaalka lahayn laakiin karka leh dumarka dhiibkooduna waa waxyaalaha muuqaalka leh sida cilaanka oo kale kalar muuqda laakiin aan carafta lahayn marka ay joogaan ka baxsan yihiin yani mandiqadooda gaarka ama yani boqortooyada gaarka markay ka baxsan yihiin yani waxyaalaha way kala socan yihiin laakiin markay boqortooyada joogto cilaankiina way ismaali kartaa waxyaalo kale oo maaragtay magaciisii aad maaragtay uga soo karana way isticmaali kartaa maxaa marka daabid waxaa daabida kow shaygaa aad marsanaysid gabaray oo cilaanka aad ka dhiganaysid kow waa inuusan nijaasa ahayn waa inuusan nijaasa ku darsanayn طبعا cilaanka inaad shay nijaasa aad ku darin daabidka labaad waxa waaye inaadan uusan jurmi lahayn hadduu shay nijaasa noqdo haddii waaba nijaas korkaaga nijaasa ku yaala dahaara ka ansixime dad biyo taabsiiso biyihii iyo waa isku sii dhexgala waa isku sii barxamayaan nijaasadii korkii waa sii gaarayaan dharkii waa sii gaarayaan wax ku xasbaya ma jiraan sidoo kale hadduu uusan jurmi lahayn jurmi hadduu yeesho cilaanka caadiga waad aragteen gabdhaha jurmi ma laha way marsadaan waana weyse qaataan jurmi hadduu yeesho macnaha dahaara ka ansax mayso weyse qaad ma ka ansaxayo weyse qaadka wuxuu u baahan korkii in la gaarsiiyo korkiina waxaad u samaysay shay maaragtay waxa weeye dhismo kale albaabo kale aa ku aadisay ma anfacayso marka waa inuusan jurmi lahayn waa inuusan shay nijaasa ah aysan ku darsanayn inta badan nijaasaadka shayga qofku marka uu waxa asagu sabab u noqdo sharcigu ku adkeeya waxaad arkaysaa maalan ninkan iswaalay waxba lagama ridin waajibkii ilaahay iyo cibaadadii way saaranta midka waashay way ka dhacda waxba laguma laha nijaasadan adaa ka shaqeeyey oo adigu keenay waa lagu adkeynaa diinama ay jirto nijaaso oo sharcigu uu fududaynayo markay timaado leeyahay sharcigu wuu fududeeyey arrintaas wuu fududeeyey ay jirayso inta badan waxyaalaha qofku iska ilaali karo hadduu asagu sabab u noqdo waa lagu adkeynaa waxaa la iska ilaali karin sharcigu wuu fududeeya waxaa kaloo macnaha iyadana gabdhaha quruxda iyadana daabit ah waxyaalaha gabadha aan asal ahayn laakiin dadka ay ku sirayso waa inaysan gashan waa inaysan samaysan maalan tin aan dheerayn oo kale intood dheersato oy balaayo iska dhigto caawana guriga marka la geeyo ay noqoto rig garoon oo aan geesaba lahayn saakana iska dhigto rig geesale ay u ekaad waxa waaye waa ceebtaa ka mid waxa ama meel waxaa la moogtahay run iyo been runa waxaa la yidhi lugla been laba lugood lasoo qabataa la yidhi moogta macnaheed waxa waaye wax xaqiiqo aan ahayn taa xaqiiqo u ekaysiid isla markiiba xaqiiqada waa ka baxayan marka arrinkaas waa arrin marka gabadhu waxa ilaahay siiyey waa inay ku kalsoonaata quruxdeeda waa inay ku kalsoonaanta ilaahay waxa uu abuuris alla ku qanacsanta qaybta ilahayna waa inay ku qanacsanta waxa sharciga u ogolyahay waa inay marsata waxa kaloo iska dhaafta wixii marka aan jiran oo wax kala raba oo wax ilaahay xarimo raba hada nololba lama wadaagi kar waxa iyaguna muhiim ah runtii marka hore haddaad qof toosan tahay qof toosan wax la yeelo oo ilaahay dhanka waxa aad si wax u aragtiin oo si wax u urisiin oo si aad maaragtay u socon kartaan marka wadada muhiim marka waa in marka gabdhuhu ay cilaanka ay maaragtay qurxaha ay marsanayaan quruxda ay aad maaragtay sharcigu u faray laakiin quruxda waa inay xuduud leedahay qodobka kale wuxuu keenay waxa la tafliij al-asnaan oo iyadana ay dhici karto in gabadhu qurux u aragto waqtigan hadda casriga adduunyada horumartay oo qalimada lagu takhasusay oo wax walba maaragtay ay isfuudeen oo qalabka la keenay qof walba inuu yiraahdo ilkaha ay magacisay waxyaalaha hadda maryahaas waxaa ka mid ah oo runtii muddo ka hor waxaan moodi jiray in dadkan qofka aan ku arkaba ilkaha maa qofkan ka dhacay oo loo adkeyna waxaa arkay hadda maalan waxyaala la yaab kale waxaa leedahay waxaa arkay qofka waxaa dhihi jiray waqtigii hore ilka case aan maqli jiray nin oo ilkuu ka guduudan yihiin oo xoogaa aad dareemayso ilka marka leeyahay macnaha dadka ilku waa wada cad yihiin laakiin asagu waa ka duwan yahay waa ka guduudan yihiin hadda waxa waa dadkii dhan hadda ilka casay rabaan
ilkaha marin alla ii mariin mare waxaan ma arki jirnay moota maryahan dhambashaan labadan kalar gudaha loo dhex mariyo dhambasha marka la sameyna hadda wax waa qalaas alla ii mariin naag waxaa kaa hor imaanaya afkeeda as leedahay xoolo kale ilka kala lagu tabacday iyo wiil ilka is leedahay xoolo kale wax ku abuuratay meeshaan ma jirto sax maaha barnaamijkaas tafliij al-asnaan waxaa laga wadaa matal gabadhu inay qurxid darteed ay ilkii u kala fogeyso waxa weeyaan loo ogola maxaa loo ogolayn waa taqyiiru khalqillah ilaahay abuuristiisa ayaa la dagaalamaysa bedelaysa yaa arrinkaa markaa maaragtay yaa sameeya waxaa sameeya qof shaydaan weli ka dhigtay oo shaydaan u hogaamiyo ayaa sameeya jirkiisa jahjaaxa oo maaragtay waxa weeye tintiisa qorqora amba waxa ilkiisa waxa weeye magacisiiya waxa kale waxaas oo dhan waa taqyiiru khalqillah marka waa in imaamku galaa adiga dalab maa ku yimi adiga lagu leeyahay haddaad ilkaha aad saas yeesho yani dadkan oo dhan isku dooqmaan soo moog adiga dad ilka kala fog tahay mid kala fogtaanta midaa kugu rab dalkaa isku dhawey midaa kugu rab xataa ilka la xataa midaa kugu rab dadku isku dooqmaan soo moog marka adiga dooqaad waad helaysaa maxaa ilahay ula diriraysaa midaa ilka lahayn oo ilka la-aanba rabaad helaya adiga dad ilka la-da mid ilkaha oo ilka guduudan oo asoo ilka guduudkaba qurux u arko cadaankaba qurux u arkin aad helaysaa dad ilka guduudanta taa ilka caddaa sidoo kale marka waxaa isku lurtaa meesha ma jiraan basiid aad u fudud waxaa isku kaliftaa meesha ma jiraan